بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته inuu qofku isku dayo inuu noqdo caan ay cid waliba taqaano waa cudur ka dhaca dad badan oo inaga mid ah dadkaas si ay u gaadhaan yoolkaasi caatada ah ee cayinteen waxay maraan jid kastoo ay isleeyihiin waa idin gaadhsiinaya qofkaasi samaynta dhaqankan ah inuu wax kasta iyo meel kasta isku qaado isaga oo raadinaya caannimo waxa uu hilmaansan yahay inay dhibaatooyin aad u tiro badan ka soo gaadhayaan waana halka ay Soomaalidu kaga mahmaahaan meel walba ka muuqo waa lagu munad beelaa baryaan waxaad inoogu batay dhalinyaro meel kasta u maray si ay caan u noqdaan siiba baraha bulshada waxay sameynayaan wax laga yaqiiqsoodo oo diin iyo dadnimo toona aan ku habboonayn ujeedka waxaasi oo dhamina waxa weeye inay dadku bartaan oo ay caan noqdaan dadkaasi waxa ugu liita kuwa adeegsada baraha TikTok-ga oo inay caan noqdaan ay keentay sida ay iyagu isu tuseen inay wax kasta oo laga xishoon jiray jebiyaan taasina waxay keentay marka laga yimaado dadka waaweyn ee noloshooda iyo qaabka ay noqonayso iyagu ixtiraama inay ubadkii iyo ubixii ummaddan u soo korayay dhaqan ahaan baaba'aan oo wax tan ka weyn oo aanay sawiran karin inta ay arkaan ay duruufta baraha bulshada taalla keento inay noqdaan jiil aanay gaadhin waxa waajib diini ah ilaalinta ubadka iyo dhammaan qof kasta oo gaadhayo dhaqdhaqaaqeennu ha ahaata mid hadal ama ha ahaata mid fale taasi waxay qof kasta oo damiir leh ku qaadaysaa in bulshadiisan dhibban haddaanu xalkeeda qayb ka noqonayn aanu rafaadka haysta ragaadin ugu sii darin haddii qof walba oo inaga mid ahi uu hagaajin lahaa guriga uu joogo iyo dadka ku nool waxaa hubaal ah in ay dhammaan bulshadu ka qurux badnaan lahayd tan maanta dhinac kasta haddii ay noqoto sahal ma aha dhalin iyo dhalaan ummaddan u soo kacaya oo la rogo dhaqankoodii wanaagsanaa ee ay waalidiintu ku soo bixiyeen wax kastoo ay karayeen hiil iyo hooba qof kasta oo sabab u ahaa inay xumaadaan ama muuqaalkiisa inay daawadeen ha ahaato ama maqaalkiisa inay akhriyeene isagu qayb ayaa uu ka yahay gafka uu alle qorayo godobna waa uu ka gelayaa ummaddan oo if iyo aakhiraba howlba u taalla haddaannu ka laaban oo aannu marin liibaanta dhabbaheeda ilaan iyada ayaa liba lagu gaadhaaye